talaado kowda bisha Juulaay 2025 barnaamijkeenan maanta insha Allah taala waxaan ku qaada dhigi doonaa Istanbul oo ay gelgeleen mudaharaadyo ka kacay kadib markii joornaal kamida joornaalada ka soo baxa dalka Turkiga oo aflagaada cad u geystay suubanaheeni sallallahu alayhi wa sallam nabi Maxamed. waxaan idin la wadaagi doonaa insha Allah taala joornaalkan sidii uu wax u sawiray iyo jawaabta ay ka bixiyeen dawladda iyo shacab weynaha Turkiga. joornaalkan ayaa waxa la yiraahdaa Le Monde waxana uu soo baxaa usbuuc kasto waxana lagu yaqaanaa in uu sawiro ama farshaxan soo bandhigo xagga siyaasadda ah. joornaalkan ayaa waxaan maqli jiray geelow wax kasta daaqday geed kasta daaqday waxa lagu yaabaa markaad ciin daaqdid ayaa waxaan moodaa inay ciin daaqeen. waxa ka soo baxay in joornaalkan uu soo saaray sawir hawada sare buubaayo oo baalal leh oo ay ku qoreen Maxamed iyo sawir kale oo isna ka soo horjeeda oo is salaamayaan isna baalal leh oo ay ku qoreen Moses ama Muuse alayhi salaam. waxa marka dadka reer Istanbul ay u turjunteen ama akhristayaalka joornaalkanba in ay ka wadaan nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo nabi Muuse alayhi salaam oo hawada kore isku salaamayo. dadka hoose oo hoos jooga oo shacabka ah ama crowdka bulshada labadaas sawir oo kor ah ka hooseeyana waxa ay ku sheegeen in ay yihiin dadkii ay ka tageen labada nabi oo isdagaalayo oo Israa'iiliyiinta iyo muslimiintii oo isbambaynayo oo xabadaha ay ku socdaan iyo dhul gubanayo bay ka dhigeen. marka dadka reer Turki ayaa waxa ay arrinkan u turjunteen in sidaas laga wado aflagaada cadna ay tahay joornaalkan iyo saxaafadda Turkiga ka soo baxda in ay wax noocan ku kacdo oo ay ku dayato joornaalkii hadda ka hor ka soo bixi jiray Faransiiska Charlie Hebdo oo sidaas la mid ah sawiro noocaas ah taswiir soo saaray. marka Turkiga ayaa dadka reer Istanbul ayaa waxa ay bilaabeen inay tallaabo cad ka qaadaan joornaalkii iyaga oo burburiyay saldhigii iyo xafiiskii ay lahaayeen Le Monde joornaalkaas. sidaas la midana booliiska magaalada Istanbul ayaa tallaabo cad ka qaaday nimankii soo saaray joornaalka. ilaa hadeer waxaa la soo qabtay 4 qof oo loo aaneynayo in iyagu ay sawireen sawiradan soo saareen. 4taas qofna waxa ay ka shaqeynayeen joornaalka iyaga oo kabacad cagacad ma iraade oo kabala'aan ah baa guryahoodii laga soo qabtay. nimankaas ayaa la soo xirxiray waxaana ka hadlay mas'uuliyiin badan reer Turki ah. waxa ahaba ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha kaas ayaa waxa uu sheegay in uu yahay sawirkan xadgudub aflagaado aan geed loogu soo gaban iyo daandaansi cad oo ay rabaan in dadka muslimiinta ah ay ku kiciyaan. waxa uu sheegay sidee wuxuu yiri aad waxaan inta u sameeysid aanan lagu soo qaban doonin aanan lagu maxkamadeyn doonin sharcigana aan lagu horkeeni doonin. wasiirka arrimaha gudaha waxa la yiraahdaa Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya ayaa la yiraahdaa. kan waxa uu sheegay in aysan kamid ahaan karin xurriyatul qowlka waxa loo yaqaano freedom of speech meelna kama soo kasho dhahay in nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam lagu xadgudbo dadka shacabka aana la kiciyo. waxa saas la mid ah hadlay afhayeenka madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan waxa la yiraahdaa isna Fahrettin Altun kaasna waxa uu sheegay in weerarkan sawirkan uu yahay weerar cad oo lagu soo qaaday iimaanka iyo dadkan muslimiinta ah waxyaabaha ay ilaashadaan beliefskooda iyo valueskooda dadka muslimiinta ah lagu soo qaaday. sidaas si kasi daranna waxa u hadlay wasiirka cadaaladda iyo awqaafta iyo diinta kaas oo sheegay in investigation iyo baaritaan lagu bilaabay incidentigan ama dhacdadan iyada oo la isticmaalayo sharciga Turkiga uu leeyahay article 216 oo sheegayo in qofka ku xadgudba diinta si cad u caaya ama diinta islaamka tallaabo cad laga qaadi doono. kulay waxa ku qoran penal code kaas waa la ogaan doonaa oo sharciyan laakiin
sharcigaas ayaa lagu qaadaya nimankii iyaga ah. Journalkan waa journal sida la sheegay ka soo baxa isbuuc kasta magaalada Istanbul. wax micno leh oo hadda uu qorana ma jiro, oo sawirro yaryar oo siyaasadda ku saabsan oo aan saas loo akhrisanin oo qiimo badan aan lahayn ayuu sheegaa. So iyagoo isdifaacaya ayaa waxay yiraahdeen in loo turjunto journalkan sawirkan in uu yahay Prophet Muhammad. iyaga naftooda waa dad islaam ah sida hadda ay u qorayaan. waa qalad bay yiraahdeen. annaga waxaan ka wadnay nin Muhammad la yiraahdo ay dileen qolyahan Israa'iiliyiinta ayaan ka wadnay buu yiri. kolay waa niman isdifaacayo. waxa ay sheegeen oo kale in 200 milyan oo qof in ka badan oo islaam ah magaca Muhammad ay wataan. marka waxaan ka wadnay bay yiraahdeen nin ay dileen Israa'iiliyiinta dagaaladii ka socday gobolka bariga dhexe baan ka wadnay bay yiraahdeen. si qalada ayaa loo turjuntay. raaligelinna waan ka bixinaynaa bay yiraahdeen oo qofkii akhrista ah oo si qalada u fahmay waan ka raaligelinaynaa. waxaa hadlay mayorka ama duqa magaalada Istanbul kaasoo sheegay in la qabtay raggii dhibta geystay. waxa uu sheegay dadkaas waan soo xirxirnay buu yiri. journalkii xafiiskiisii hadeer waa uu xiran yahay. waxaan u sheegaynaa buu yiri dadka shacabka ah inay isdejiyaan oo ay ka kala tagaan meelaha ay joogaan. hase yeeshee dad gurubyo kale oo cusub ayaa hadeer waxa ay bilaabeen inay is urursi sameeyaan oo mudaharaad hor leh baa la qaban qaabinaya. nimankan meel fog baa la rabaa in looga soo haro sida hadda u muuqato. waxa hadeer mudaharaadayaal oo la xiray ma jiraan. wax hadda dhibaato weyn oo dhacay. mudaharaadkan wuxuu u badan yahay mudaharaad silmi ah oo mid faraha ka baxay oo rabshado wata weli ma noqon. dadka markiis waxa ay ku qaylinayeen baa la yiri Allahu Akbar, ilaah baa weyn, rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam lama caayni karo, waan u dhimanaynaa waxna waa u dilaynaa bay yiraahdeen. arrinkan ay sheegeen waxaana dowladda Turkiga ay ku adkeysanaysaa in hawshan aysan soo hoosgali doonin xurriyatul qowlka oo aan looga gaban doonin in qof dhibaato noocaasa uu geysto, aflagaada noocaasa uu geysto, rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu caayo ama sawirro uu ka soo saaro. in aysan sinaba saxaafadda aysan ku baxsan doonin arrinkan isaga ah oo aysan maaragtay kaga badbaadi doonin xariga hadda la xiray iyo in la maxkamadeeyo. marka waxaan sugi doonaa insha Allah taala wixii ka soo kordha oo ku saabsan arrinkan isaga ah. laakiin so far hadeer halkaas ayay maraysaa. Istanbul waa gilgilanaysaa. nimankii odayaasha ahaa waa la soo xiray. maxkamadeynteedii waan sugaynaa insha Allah bal waxa ka soo kordha iyo waxa ka soo baxa. intaas ayaan rabay inaan idinku soo biiriyo arrinka ku saabsan aflagaadada rasuulka loo geystay sallallahu alayhi wasallam. laakiin halkaas ay noo joogto insha Allah taala bal wixii soo kordha waa isla socon doonaa. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe to the channel, like and share the video insha Allah. Peace.